isla dadkeeda waaya waxay leeyihiin diyaaradda ma baratay haa keligaa maa wada haa dad maa qaadaa weli maya horde saas naga dhaniyo dad ma qaadi kartide haddana waxaa bilaabay inaan dad qaado oo maraykanka dhexdiisa wareejiyo markaasay leeyiin diyaarad maa weli ma wadaa haa diyaarad yaristeeda kuleeyihin ma wadaa haa xagee aadaa maraykanka dhexdiisa haddee saas naga dhaniyo international pilot ma samayn kartide adee kabacdi internationalkii aa bilaabay isla same people-ka qaara weli waxay ku leeyihiin niyo ma taqaanaa diyaarad dagaal si loo wado maba barana maxaa baray cilmi dhagood waaye iyaga fiilkan aqoon qof Soomaaliya marka aad isku aragtaan airport weyn uu arko inaad adigu ahayd pilotka diyaaradda waday reaction-kooda see waaye horta xoogaa way bedelmatay midha dadka social media iga arkeen laakiin badanaa kow waxay dhihi jireen haa bilowga waxay dhihi jireen niyo pilot runa miyaa taha marka xoogaa si ugu jawaab ma gerin qofkii haddaa dhaho haa pilot runa iyo pilot fake ma kala aqaani wax la dhaho pilot runa miyaa taha pilot fake baa aan doortay flight instructor waxay dhahaan inaan noqdo inaan dadka diyaaradda baro soo ka soo qaado kale adi xaliya maanta ii timid diyaarad baan ku barayaa hal saac ka soo qaado hal saac ayla duusha halkii saac ayla duushay adna waad qoranaysaa waa ku baranaysaa anigana halkii saac waan qoranayaa oo buugaygan ku qoranay ilaa 1500 saa uga gaaraya marka muddo hal sana u sii socotay dadka laakiin xoogaa ama qaara badanaa airboorada iga garto laakiin anigu badanaa waxaa isku dayaa qof Soomaali hadda arkaba especially qof oo ama maamada hooyada leeg ama aabahay oo kale ama waayeel ama qof caruur wato anaaba soo raasay oo imaana sidee flight ma raacaysa haa xagga u socota xagga marka waxaa isku dayaa qofka kursi fiican inaan keeno oo business class ama first class duu furan yahay gabadha flight attendant inaan dhaho qofkaas family-kayga waaye inaan dawriga arkinaa laga yaabaa Soomaalinimada le bas qofkaas family-kayga waaye biyay wax u baahdaan si ma garata laakiin markuu ku arko wuxuu ku dhahaa fake baa tahay markii kood fake baa tahay xagee wax laakiin laakiin taasna waxay keenaysaa ani badanaa dacad ahaan marka xalli ku warramo shaqadan waxaa u arkaa shaqo inaan samaynayo ilaa maaha wax kaloo weyn ilaa wix sanado markaa samaysid waa la qabtay adiga kaaga waaye adiga fiilkan aad ku su'aal maya su'aal fiican waaye markii aan leysinada ani qaatay badanaa markaan leysinada qaadatid again adduunka dhan badanaa waa wax iskugu mida sababtoo diyaaradaha adduunka dhan iskugu gudbaan marka waa isku wada mid markay sharciyadaas u kala imaado leysinada markaan wada qaatay adi waxaan haystay 250 saacadood markaan 250 saac haysatid waxaa lagaaga baahan yahay si aad dadka u qaadid oo diyaaradaha waaweyn wadid 1500 marka 1500 dhowr si baa lagu gaaraa waxaa lagu gaari karaa company yar sida maaragtay dhulalkan hadda western world waxay leeyihiin helicopter oo news ka soo report garaysa iyo traffic ka soo hadasha iyo waxaasoo kala wadi kartaa ama waxaa yeeli kartaa haddii qof taajir ku dhalay ama family taajir ka imaaday diyaaradii ayaga leeyihiin u wadi kartaa ani laakiin waxaan wada oo flight instructor ah inaan dadka baro kabacdi sanad aan baranayay sanad kale tan dad aan baray diyaaradda markaas kabacdi waxaan bilaabay inaan diyaaradaha xamuulka oo dadka inaan qaado oo aan ka shaqeeyo okay marka kuwii dadka u kala baxaya labo mid ah inaad ka Mareykanka oo aadid Dubai oo kale ama aad Switzerland oo kale aadid sida hadda falaadada aad samaysay waaweyn iyo mid ah isteedyada teebaad ku hormartay kan isteedyada ku hor labadooda mid ka rabtay aadi kartaa aniga laakiin markaas waxaan ku hormaray kan localka ah sababtana ku sheegay sababta waxay ahayd 2 sano ba si xun isku guba oo every morning 6 in the morning ilaa hameenkii midnight aan diyaarad iyo airport taagnaa marka ma rabin weli inaan laba sano marka sanadkii aan baranayay iyo sanadkii kale aan dadka barayay marka si aanan gurigayga uga maqnaanin oo gymkayga iskaga aado oo kubaddeeda iskaga ciyaaro domestic basa waxay bilaabaan Canada Mexico iyo Mareykanka la joognay 4 bari aan maqnaanay oo soo wareegay waa soo laabanay taas waxaan sameeyay adi muddo 2 sano iyo bar ilaa 3 sano sameynayay last yearna markaan ku imaanay waa aniga ka sheekaysanayna markaas waxaan bilaabay internationalka inaan bilaabo oo hadda badanaa 90% international flights bas aan sameeyaa okay so meeqa sana u dhaxaysay inaad international flight bilowdid iyo intaad
maalinkaad bilowdayna diyaarad baratid meeqa sana u dhaxaysay waxaan rabaa waa adaha ما هو سؤال فعلا 4 سنة أود حيسي لكن تذكر ربع هذا كسوق هذا كذا دار بتيد أو عاد ما يصير كل شيء هذا بقول هاي ستين إسلام ما أنت بقى بلعب كرتا إنترناشنال ده وبهتيد أنا لكن 4 سنة أود حيسي أنا سهر بي أوكي لكن واحد شرت فكرة قفك وميسين هاي isagoo laga yaabo inuu hal sano markuu saa uga soo baxayba waa aaminsan yahay horaanka kora diyaarada international waxaas maxaa ka jira ma dadkeena waa fahansanaa experience u baahan experience horta midda hadda ka dhawaajisay weligaa dadka kaama deynayaan kasoo markaan baranayo sheeko yara kaaga sheekeena markaan kow baranayo dadka waxay dhihi jireen social media kuma jirin isna ma lahayn Facebook ma lahayn waxaan dhan hadda igu horeyso marka kow waxay dhihi jireen magaalaan deganaa magaalada dadka waxay dhihi jireen warniyo diyaarada barataa la yiri maxaa ka jiro haaniya waan bartaa kaliya ma wado maya wardi hadda saar naga dhexbay kuleeyihiin kaliya ma wadide oo iska aamusa diyaaradii ilaa markasta qofka kula socdo waa baranaysa qofka inta ku fadhiyo oo diyaaradii ku dhaay inta u leexi waqtiga ka soo wareegtay si daacada ugu jawaabay ha ari daacadna ka taa u maleena laakiin almar dhageyso hadda waxa diyaaradii kaliya inaa wado waa diyaarad yar 4 qof qaado laakiin airportka agtiisa wareegay magaalada degan tahay markaas isla dadkeeda waxay leeyihiin diyaaradda ma baratay ha kaliya ma wada ha dad ma qaadaa wali maya horde saas naga dhaniyo dad ma qaadi kartide way si dheereynaya ka bacdi haddana waxaa bilaabay inaan dad qaado oo Mareykanka dhexdiisa wareejiyo markaas ilaa diyaarad ma wali ma wada ha diyaarad yiristeeda kuleeyay ma wada ha xagee aada Mareykanka dhexdiisa hadda saas naga dhaniyo international pilot ma sameyn kartide adee ka bacdi international ka bilaabay isla same people ka qaar wali waxay kuleeyihiin niyo ma taqaana diyaarad dagaal si loo wado ma baran maxay baray cilmi dhagood waaye iyaga fiilkan aqoon ma laha waxaan okay qof Soomaaliya marka aad isku aragtaan airport weyn ama uu arko inaad adigu ahayd pilotka diyaaradda waday reaction kooda see waaye horta xawaa way bedelmatay mid dad social media iga arkeen laakiin badana koow waxay jireen ha bilowga waxay jireen niyo pilot runa miyaa taha marka xoogaa si ugu jawaab ma geerin qofka hadaa dhoo ha pilot runa iyo pilot fake ma kala aqaan wax la dhoo pilot runa miyaa taha ma jira pilot fake ba sa daraadad baan adiga kula sheekaysanaya waayo qof kasta waxa jirta fiil uu ku takhasusay waxa jirta adduunyada waxa la dhoo professionalism xirfadan aad ku takhasusay qofka dhakhtarka rays kuma amar dadku daaweynayay waxaan oo dhan maalin kasta uu sameeyaa lawyer-ka sidoo kale pilotka sidoo kale laakiin point-kaas aan soo laabanaya aan rabaa inaan wax ku darsado Soomaalida markay ku dhahayaan nihow adiga run ma tahay been ma tahay goormee diyaarad weyn wadaysaa goormee diyaarad yar wadaysaa goormee wax samaynaysaa hal jirta oo waxaan u maleynayaa hadda korna inaan adiga si private kugu mention gareey oo dadkeena waxa ka dhintay self esteem koodu wuu hooseeyaa marka wuxuu aaminsan yahay qof Soomaali waxaan ma noqon karo waxaan gaal loogu talagalay point fiican way pointiga sheegtay laakiin midda saxda ah waxay tahay marmar dadku u garaaba oo waxaan dhahaa dadka may arkin qof Soomaali waxay arkeen shaqadan A iyo B ka shaqeeya shaqadan kale may arkin laakiin midda kale hadda TikTok-an marka furinayo xataa waa ku sheegay waanay ka wada hadlaynay adaab igu dhiirigelay dadkana wax tus adu ahaa ana TikTok lahayn laakiin pointiga ka wata waxa waaye dadka markay dhahaan dada marmar waxay isoo qoraan xumaan uma waqaato xumaan war diyaarad ay qof Soomaali wata ma raaceen marka isaga ka turtumaysa ma kama wado adiga ma inuu ku dhibaataynayo laakiin isaga waxaan aysan macquul ahayn oo waxaan lama gaari karo waxaan gaalada loogu talagalay niyadooda marka isaga waxa laga yaabaa qofkan inuu commentiga MBC daacada uu isagu arko laakiin dhinaca waxa uu sameynaya waxay tahay waxa waaye waxaan lama gaari karo waxaan macquul maaha waxaan suurtagal maaha fariintu diraya taas waaye so niyad jabana marka Soomaalida aad fiirisidna waxaan u soo laabanayaa su'aal kale oo taa daba socoto marka Soomaalidu Mareykanka soo gasho ma qabtaa shaqooyin professional adi sidee kugu dhalatay inaad professional noqotid oo aad ka leexatid wadada cilmi dhagoodka waayo qofka Soomaaliga ka kuma laga keenaa 4 bari ka hor maalinka lixaad wuxuu qaatay CDL buu qaatay waa truck driver waaye wuxuu ku leeyahay ana magaalada xaraan ku haysta wax uu kala og yahayna ma jirto
نيو sida aad sheegtay waa horta aniga waxa igu dhaliyay markaan laabto run ahaantii waaye hooyada iyo aabahay labadaba haddii aan maanta dhaho taxi driver aan noqonaya weliga imay dhihin maxaa u noqonaysaa waxay leeyihiin okay haye gaariga taxiga kuu soo gadaynaa ama gaariga taxiga kuu soo qaadaynaa kabacdi laga yaabaa inay dhahaan ma taxiga iska dayso saa samaysid marka waxay ka imaadaa qofka waaridka bada hadda waaridkayga markaa u sheego diyaarada rabaa inaan barto weliga imay dhihinin maxaa diyaarad u baranaya iyo ama shaqo ku weysaa iyo waryaa diyaarad see u dhaafo hebelaa taraa koray oo aan aqaanaa oo boqol ku sameeyo war waxaan jooji iska dhaaf laguma dhahaayo waalidiinta qaar laakiin iyaga dadka kale qofkii wuxuu rabaa inuu ku sambal gareeyo qofkan traaga wada ama qofkan amazonka ka shaqeeya wuxuu ugu sheekeeyo oo kale ama daycare furo kale la iska kaleeyahay iska taqaanaa dadkeena talada way badan tahay hadda mid traag ayaan ka hadlaynay traag oo kale hadda maalin ma aqaani qofka wuxuu soo weydiiyey lacag meeqa pilot uu qaataa su'aashii aan ka soo jawaabay dadka badanaa information ahaana aan u siiyey igama ahayn wax kale dada waxay soo qorayeen traaga ka lacag badan okay ama ka lacag badnaato ama ka lacag yaraato pointiga waxaas maba ahaba qofku wuxuu u jecel yahay uu rabo ana hadii maanta la dhaho diyaarada waxay taalaa Soomaaliya geeskeeda kaala ka shaqee lacag la'aan ku shaqee hadaa inta shaqo ka waayo intaan aadaa diyaaradaas ka shaqeynay sababtana waxay tahay wixii waa wax ani aan jeclahay ma garata adi aarti ma aha inaad dhahdid lacag waxaa la qaataa 100 iyo inta iyo waxaas horta lacag ba lagama fakiro wixii adaa la isla fariisto waa la isfiiriya waxa dhaha maxaan jeclaha kabacdi markaa su'aasha aad is weydiisid wixii waa la daba galaa hadda sida dayta kuu sheegayo kale aniga family taajir kama dhalan lacag ma ka dhalan waxaas oo dhan kama dhalan keli wixii anay ugu dhasheen wadadeedina waa u mara intaas bas ay dadka isdheer yihiin meesha rabta adduunka ka joog hadday wax kugu dhashaan xirfad kala baran kartaa hadda ka soo qaado kale Soomaaliya ba joogtaa ama Kenya pilot ma haysatid lacagta lagu noqdo waxaa samayn kartaa makaaniga noqon kartaa oo diyaaradda dhinaca wadada la lugta soo gashan kartaa kabacdi dad diyaarad haysto dad diyaarad baro waxaas barani leenkiina waa ku jirtaa laakiin markasta ani talada waxa waaye lama fiiriyo lacagta track driver ma quu sameeyaa taraaga waa qof aan shaqo ka shaqeynaysa laakiin haddii bari suuq wax isbedel sida hadda kale maanta hore baan ka hadlaynay adi last week mar hadlaynay taraaga suuqiisa kale waa hoos waa shaqo fiican shaqo xun ma aha laakiin waa shaqo isbedelaysa soo taasoo kale waa inuu qofkii la socdaa laakiin mid kalena way jirtaa oo ah Soomaalida Mareykanka markay soo galaan uma fakaraan si professionalism iyo si skill ku dhisan yahay ee waxay u fakaraan maxaan maanta wax ka cuni karaa waa hadee markii inteen qofku soo bixin waxa ku jirto lacag hadee markii hore qofku ku jiri lahayd hadaa Mareykan tago ama hadaa Europe tago ama hadaa chance u helo waxaan barani saanaan sameeyni kali aynu ku jirin hadaa Mareykan taga lacagtaana sameeyni qofku gaari karaa because sababtoo taraaga lacagta rooba qofka sameeyo rag ka taajir way jiraan rag sanada waday oo shaqadooda jecel way jirtaa taraaga laakiin badana shaqo ma ahan lagu daaho 3 san 4 san qofka markuu wado uu ka daali because maalintii markay dhamaato 12 saac gaari wada oo wadada indhaha kama qaadi kartid laakiin waxa taa jecesha weliga gaari wadi jirtay qofku uu sameyn karaa ma garata laakiin uma malaynayo Soomaalida ragga badankooda ragga dhalinyarada taraaga koreynay jecel ka tahay ee waxay ka tahay intee quick back ka helaya halkee ka helaa lacagta ugu dhaqsaha badan quick fix buu qofka okay